kusoo dhawaada barnaamijkaygii cunno karinta anigoo ah Sheef Cabdicasiis Dhicis waxaan idin soo bandhigayaa hab idinku cusub oo loo suubiyo hamburgerka sandwichka hamburgerka dad badan baa waxay isweydiiyaan ma McDonald's baan wax ka cunnaa mise Burger King baan wax ka cunnaa mise hamburger barbecue baan suubsanaa mise waxaan suubsanaa hamburger oo griddle style ama mid grillka lagu suubiyay open grillka lagu suubiyay iyo mid broilerka lagu suubiyay iyo mid maaragtay pan frying lagu suubiyay oo birtaawo lagu shiilo caaw waxaan idin soo bandhigayaa qaab cusub oo aad iyo aad u fiican ground beefka ama hilibka shiishiidka waxaa laga suubiyaa hamburgerka meatballska meatloafka kuftaha kabaabka sambuusiga iyo wixii la mid ah ground beefka hilibkiisa waxaa kaloo laga suubin karaa suugada nooca loo yaqaano bolognese sauce marka waxaa habboon inaad kala ogaatid hilibka nooca ground beefka ee laga suubiyo hamburgerka wuu ka duwan yahay kuwa kale ee laga suubiyo meatloafka iyo meatballska iyo kabaabka hamburgerka hilibkiisa waxaa lagu daraa hilib baruur ama faad leh marka aad tagtid suuqyada waaweyn ee hilibka lagu gado waxaa arkaysaa hamburgerka miidkiisa inta faad ah lagu daro badanaa waxay ku daraan hilibka shiishiidka boqolkiiba 30 faatise ugu badnaan ama boqolkiiba 15 ilaa iyo 30 faatise sidaas buu hilibka hamburgerka kaga duwan yahay hilbaha kale ee ground beefka ah hilib kasta oo ceeriina wuxuu khatar u yahay inuu leeyahay bacteria marka waxaa habboon in hilibka shiishiidka xaraaradiisa temperature-ka laga kordhiyo 160 Fahrenheit marka la karinayo ground beefka sidiisaba waa in uu yahay boqolkiiba 80 maxaa la yiraahdaa hilib saafi ah boqolkiiba 20 oo yahay faad oo yahay marna waxa la yiraahdaa boqolkiiba 70 ayuu wuxuu yahay hilib saafi ah boqolkiiba 30 waa faad lagu shiidayo si kastaba ha ahaato waxa weeye hilibka marka faadska lagu shiido waxa weeye hodhowto marka oo karayo moisture dhacaan ayuu yeelanayaa si fiican ayuu u karayaa faatski ayaa karinaya haddii aad rabtid in aad suubisid hamburger juicy ah oo aad u macaan waxaa habboon in boqolkiiba 20% oo faad ah aad ku darto hilibka saafiga ah si markaad hamburgerka karinaysid uu juicy u noqdo oo dhacaankiisa kariyo inta aan u gudbin qaabka aan caawa hamburgerka u karinayo waxaa habboon in aan idin tuso recipe-ga wuxuu ka kooban yahay hilib shiishiid ah oo leh 20% faatise barbarooni gaduud oo aan foornada ku rostigareeyay iyo basal rosmarino iyo romano lettuce yaanyo ginger oo dried oo garlic oo toone filfil busbaas gaduud oo dried cusbo ama haddii kale lemon salt iyo paprika waxaan kaloo ku darayaa ama aan ku qurxinayaa cilantro haddaad rabtidna waxaa ku qurxsan kartaa parsley hilibka shiishiidka waxaan ku darayaa carfiyaasha iyo Worcester sauce-ka si aayar ah ayaan isku dhexgelinayaa Worcester sauce-ka wuxuu isku dhajinayaa hilibka si uusan u kala daadan hilibka shiishiidka waxaan ku dhexritay cylinderkan si isla eg baan u gooyay waxaan ka dhigayaa qaabka hamburgerka halkii baan oo shiishiid ah wuxuu noqonayaa 4 xabbo oo hamburger ah waxaan soo qaatay aluminumkan oo aan butter horay u soo marsaday basal ayaan ku dhexriday iyo hamburger waxaan kaloo dusha ka saarayaa barbarooni rosmarino iyo basal cagaar waxaan dusha kaga darayaa xoogaa Worcester sauce waxaan ku darayaa cilantro haddaadan cilantro haysan waxaad ku dari kartaa parsley si fiican baan daboolka u saarayaa si uusan hamburgerka dhacaankiisa iyo xaraarada kulka gudihiisa aysan banaanka u bixin foornada waxaan geynayaa 350 Fahrenheit waxaan hamburgerka foorneynayaa 30 daqiiqo ama ilaa hilibka xaraaradiisa kulka ah ay gaarto 156 ama 160 wax ka badan
hamburgerka foornada ayaan ka soo saaray siduu ku soo baxay waa u jeedaan maasha Allah aad buu u carfoon yahay waxaana filayaa inuu aad u macaan yahay waxaan soo qaatay rooti aan toast gareeyay ayaan waxaan marinayaa mayonnaise iyo mustard sauce waxaan kaloo ku darayaa yaanyo iyo salad iyo maaragtay pickle iyo ketchup aan dusha kaga darayo hilibka hamburgerka oo kulul baan rootiga dusha ka saarayaa dhexda ayaan ka kala goonayaa waxaan kaloo soo qaatay saxan aan hamburgerka dhex dhigayo hamburger kale oo aan horay u soo marsaday mayonnaise iyo saladkiisii ayaan sidoo kale dhexda ka kala gooyay sixniga ayaan ku qurxinayaa waxaan dusha ka saarayaa basal aan hilibka la foorneeyay iyo green olives oo aan ku qurxinayo waa aragtaan hamburgerka aad buu u qurxoon yahay aad buu u macaan yahay waxa aan filayaa inaad ka bogateen habka wacan oo aan idinku soo bandhigay hamburgerka waa u jeedaan aad iyo aad buu u qurxoon yahay inta aan ku kulmi doono barnaamijkaani barnaamij la mid ah anigoo ah Sheekh Cabdicasiis Dhicis waxaan idin leeyahay amaana Allah meel alla meesha aad joogtaan wiiga dambe waxaan soo qaadan doonaa barnaamijyo kale oo aad iyo aad xiiso u leh mahadsanidin